kula wanaagsan meel walba aad joogtaan halkani waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij aan ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay ee caalamka qodobada aan soo qaadan doonana waxa ka mid noqon doona madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo culays badan uu kaga imanayo dhinaca ururka ay ku mideysan yihiin ammaan ahaan ee NATO iyo waliba wadamo reer Yurub oo doonaya in ay ka mid noqdaan waa uu ka hadlay waxaan eegi doonaa waxyaabihii uu ka yiri waad ku mahadsantihiin aragtiyadiina iyo fikradaha kala duwan ee mar walba halkan aad nagula wadaagtaan waxaana isku day doonaa inaan idinku soo gudbino halkan barnaamijyo kala duwan oo caalamka iyo Soomaalida intaba quseeya hadii uu guul la saamaxo aan ku bilowno madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa waxa uu ka hadlay dhinaca iyo NATO iyo khilaafka ka dhaxta Turkigu waxa uu bartanka kaga jira khilaaf dhinaca NATO sababtuna waxa ay tahay isagu waxa uu ka soo horjeedaa wadamo dhowr ah oo dagaalka Ruushka dartii u doonaya ku biirista NATO oo Finland iyo Sweden ay ugu horeeyaan wadamadaasi markii horeeto waxa ay filayeen inuu san Turki marnaba hor istaagi karin laakiin talaabooyin uu Erdogan qaaday oo siyaasadeed ama diblomaasiyadeed waxa ay keentay in ay arintaasi ku guul dareysa madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa waxa uu ka hadlay amaba kulan masjidka Hazrat Ali Ek oo ku yaala magaalada Istanbul salaadii jimcada kadib ayuu halkaasi khudbad kooban ka jeediyay waxa uu kula hadlayay wadanka Turkiga iyo shacabkiisa sidoo kaleeto waxa uu halkaasi ka soo jeediyay fariin ay dadka wadankaasi ku nool aan idhaahday guud ahaan caalamka iyo ururka NATO uu la jeedo marka la fiiriyo xubinimada NATO ee Finland iyo Sweden ayuu Erdogan yiri waxaan kulan ballaaran la yeeshay ra'iisul wasaaraha Netherlands maanta bari waxa aan wada hadal yeelan doonaa Ingiriiska iyo Finland waxa kale oo aan la kulmi doonaa buu yiri xogayaha guud ee wadan aan idhaahday ururkaasi NATO waxa uu xusay in dalalka Yurub oo haysta PKK in ay yihiin argagixiso ma arkayaan YPG in ay sida ay ka dhigeen ururadaasi oo kaleeto hadallo ay ka jeediyeen baarlamaanadooda ayuu Erdogan hadii aan ognahay in NATO ay aad u neceb tahay argagixisada hadii aan ognahay in NATO ay tahay urur dhinaca ammaanka ma ogolaanayno in urur argagixiso lagu soo daro NATO ma ihi mana yeeli karno waxay ila tahay waxa la mid ah Sweden iyo Finland ayuu yiri madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan arintani waxa ay si weyn uga careysiisay wadamadaasi aan magacyadooda soo xusnay sababtuna waxa ay tahay dadaalka ay ku bixinayeen iyaga oo dhibaatada Ruushka iyo amni inay ka helaan halkaas iyada ugu cararayay ayay haddana waxa ay la kulmayaan cadaadis waxa kale oo dilay diblomaasiyad xumo ka timid wadamadaasi sababtuna waxa ay tahay marnaba iskuma aynan filaynin ama dayinba inay Turkiga xiriir wanaagsan la sameystaan sidoo kale tana uu Turkigu wax caqabada ku yeelan karo hanaanka geedi socodka ee ku biiritaankooda NATO maxaa yeelay Erdogan waxa uu saaxiib dhow la yahay wadanka Ruushka marnana inaysan ka suurta gali karin arintaasi waxa jirtay filasho aad u weyneyd oo la xiriirtay arintaasi madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan saameyn ballaaran oo siyaasadeed ama diblomaasiyadeed ayuu caalamka xilligan ku leeyahay awoodiisa dhinaca ciidanka si weyn ayay iyaduna u kordhaysaa waxaana saaxiibo badan oo dunida uu ka sameystay kuwaasi oo kala ah amaba dhinaca amniga iyo sidoo kale dhinaca hubka iyo qaybo kaleetaba oo ugu talagalay madaxweynaha wadanka Turkiga in uu uga faa'iideysto mudooyinkii ugu dambeeyay way anfacday maxaa yeelay wadanka Turkiga fagaarayaal kala duwan ayuu saameyn toos ah iyo mitaban intaba ku yeeshay waana mid caawisay baa la leeyahay madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan arintaas faa'iido badanna u keentay dhinaca siyaasad ahaan wadankiisa marka la fiiriyo Finland iyo Sweden waxay xilligan ka qoomamaynayaan wixii ay xiriir wanaagsan ula lahaan waayeen Erdogan iyo sidoo kale wadanka Turkiga
waana midda keentay wadamo badani in ay mar walba ku soo baxdo filasho la'aan arrintaasi ku saabsan oo aysan markii horeeto filayn. Waddanka Mareykanka oo cadaadiska ugu badani uu kala dhaxeeyay muddooyinkii ugu dambeeyay Turkiga hadda waa mid ka qoomamaynaya sida ay xaaladdu tahay iyo xilligan culayska jira. Waxa ayna ku eedoobeen dhowr arrimood oo dhinaca diblomaasiyadda ah. Waxaa kaleeto oo jirta in uu waddanka Turkigu muddooyinkan baqalqaala adag ugu jiray in uu sameeyo qorshe istiraatiijiyadeed oo wadamada Islaamka lagu midaynayo iyo hanaan difaac oo gooni u ah Islaamka iyo diyaarad weyn oo ay wada leeyihiin oo ay samaysan doonaan. Waxaa kaleeto oo jirta qandaraasyo dhowr ah oo waddanka Turkiga iyo sidoo kaleeto waddanka Afghanistan iyo wadamo kaleeto oo dhowr ah oo muslimiini intay ku heshiiyeen ay doonayaan in ay awoodooda ku muujiyaan Islaamkana ay islaam ahaan iskaashi ugu sameeyaan. Taasi waxa ay micnaheedu tahay in hubka difaaca ee waddanka Ruushka iyo diyaaradaha SF waddanka Mareykanku uu leeyahay dhammaantood F3 aan idhaahdo in ay culays iyo cadaadis la kulmayeen muddooyinkii ugu dambeeyay. Cidda arrimahaasi dhaqaajinaysay waxay ahayd Rajab Tayyip Erdogan. inkasta oo uu jiro cadaadis xoog badan oo gudaha waddankiisa ah iyo mucaaradad uu kala kulmayo PKK iyo dhinacyo kaleeto haddana sidaas ay tahay dadaalkiisu waa uu sii socda. Dhinaca Iran oo wadamo badan oo reer Yuruba iyo Mareykankuba ay dayriyeen xilligii uu joogay madaxweynaha waddanka Mareykanka uu ahaan idhaahdee madaxweynihii xilka ka degay Donald Trump. Maxaa yeelay 2015 heshiiskii la wada galay ee Yurub iyo Mareykanka iyo Iran ay wada galeen in hubka nuclearka ay Iran wax ka bedasho ahaa waa kii uu ka baxay Trump. Taasina waxa ay caawisay Ruushka iyo Turkiga oo xiriir wanaagsan xilliga wixii ka dambeeyay la yeeshay waddanka Iran kuna faa'iiday midaasi iyada ahayd. guud ahaan marka aan fiirino Rajab Tayyip Erdogan waa nin ka aragti iyo siyaasad duwan wadamada ay isku jiilka yihiin oo NATO ay ka mid tahay. Tusaale ahaan Mareykan oo isku wada quwadda ugu weyn ee NATO inuu yahay waa uu ka aragti duwan yahay. Sidaas la mid ah waddanka Ingiriiska iyo wadamo kaleeto oo reer Yuruba oo Giriigu uu ka mid yahay waa ay kala aragti duwan yihiin. Waxayna ku kala qaybsan yihiin jasiirado ay isku hayaan Turkiga iyo Giriiga sida Khubrus oo kaleeto marka aan fiirino oo ay labada dhinac ku kala duwan yihiin in jasiiradahaasi iyo qaabka loo maareynayo. Dhul shidaal oo waxa jira uu ceegaago isagana dhinacyadana ay ku kala aragti duwan yihiin. Giriiga iyo Turkiguna muddooyinkanba isku maandhaafsanaayeen. Taasi waa mid kaleeto oo iyadana muujinaysa in Erdogan iyo wadamadaas ay NATO ku wada jiraan ay aad u kala aragti duwan yihiin. Waxa kaleeto Erdogan uu bedelay muddooyinkii ugu dambeeyay siyaasadiisa wadamada Islaamka gaar ahaan Khaliijka. Waxa uu dhowrkii bilood ee la soo dhaafay isu maray wadamo dhowr ah. Qatar markii horeba saaxiibo dhow ayay ahaayeen laakiin wadamada ay aadka u kala fogaayeen waxay ahaayeen Sacuudi Arabiya oo markii hore aysan isku fiicnayn laakiin ay siyaasadoodu sii kala durugtay kadib dilkii Jamal Khashoggi ee lagu dilay waddanka Turkiga gudihiisa. Hadda waa isku soo dhawaadeen oo kulamo ay yeesheen Mohammed bin Salmaanka ee Sacuudi Arabiya iyo sidoo kale Rajab Tayyip Erdogan. Sidoo kale waddanka Imaaraadka Carabta ayuu sidaas la mid ah oo isaga laftiisu hadda hoggaan cusub yeeshay kadib markii uu Khalifa dhintay ayaa waxa uu noqonayaa oo Al Nahyan uu la wareegay ay muujinaysaa in halkaasna isbedel ka soo socdo. Masar iyo iyaga oo markii horeeta ahayd meesha Faransiis iyo wadamo dhowra oo ka aragti duwanaa amaba ay isku khilaafsanaayeen siyaasadda Turkiga ee dhinaca Liibiya ayaa iyaguna muddooyinkan siyaasadooda bedelay oo waxaa jira isku soo dhawaansho u dhaxeeya waddanka Masar iyo Turkiga. Si kastaba isku soo wada duuduubo Turkigu waa mid ka mid ah wadamada ugu awoodda badan xilligan. Rumayso ama ha rumaysanin wadamo badan oo dunida ku yaala oo la filayay inay ka awood badan yihiin ayaa cabsi xoogan xilligan ka muujinay. Waxa ugu badan ee xilligan tooska u caawiyena waxay ahayd diyaaradihiisii aan duuliyaha lahayn ee ka sameeyay waxyaabihii laga yaabay ama mucjizooyinka dagaal ka sameeyay Ukraine iyo sidoo kaleeto
Azerbaijan iyo Armenia dagaalkoodii oo dhammaan wadamadii ka iibsaday ay ku najixeen midaasi fursad dhinaca amniga ama difaaca oo adag ayay siisay wadamo badan oo markii horeeto Turkigu inuusan awood haynin moodayna wadnaha ayay farta ku hayaan naatana wax ay dhihi karto Turkiga amaba ay si toos uga hor iman karto ma jirto sababtuna waxa ay tahay in difaaca labaad ee ugu weyn ee NATO ay leedahay wadanka Turkiga yaalo taasna aysan marna suurtagal noqon karin in wadanka Turkiga laga raro arrimahaasi hadda xulufa cusub ayuu abuurayaa waxa uu isku dayaa in si toos ah looga hor yimaado qorshaha Finland iyo Sweden ee ku biirista NATO taasina waxay caawin weyn u noqonaysaa wadanka Ruushka oo abaalka uu Erdogan u galay marna aan hilmaami doonin haddii uu ka dhabeeyo midaasiyada tan iyo kulanti dambe waa dunida 24 idin la nabadgeliyo.